Soomaaliya in badan baan walaalnimo ku sheeganay in badan baan xeerinay gobonimada laakiinse gobonimada idinka ka tago gunnimada qaatay sidaad noola dhaqanteen baa la idin dhaqmaya hadda baashu fanaan bay taagantay fanaan anagu kii aan dhalmo dalka iyaga oo gal runtaan idin sheegay ma gunnimo dagaalamo kay hadoo nuuri u dhalatayna inaad waa hoygii fanka waa meeshii lacagtu taalay waa meeshii fanku yaalay wax alaala iyo waxa idiga baahan tahay baan jirinba inantaasi waa noo soo nabad noqonaysa reer Soomaaliland mid baa oranaya war inantaasi diinu ma ahayn Soomaali jacay muhiimadiinu ma ahayn bad ilaalin ee waa Soomaaliland nacayb ku biyaca baan runta idin sheegaya maanta qadiyada waxaad noo bilowdeen inaan fanaan daba u soo talaabi doonin habeenkii dhaweyd lagu cunsuriyadeeyay Soomaaliya ee showga lahayd inanta haboon abib waa qarannimadii qofka kama kaftana hadda reer Soomaaliland nahay anigoo ku hadlaysan laba qodob ka hadlo horta aniga waxa la yiraahdaa maalinta qaranka maanta waa maalintii qaranka labada qodob ka hadlay waxaan u kala qaadayaa qodobkii inantii habeenkii dhaweyd lagu cunsuriyadeeyay Soomaaliya ee showga lahayd inanta haboon abib waa qarannimadii qofka kama kaftana hadda reer Soomaaliland nahay anigoo ku hadlaya inaan qarankayga difaaco qofka qarankayga dhiigiisu ku jira inaan difaacaan bartan u fadhiya inantaasi kama kaftano maanta reer Soomaaliya waxayna tusan walaaltinimadii aanu eegaynay way gumeeyeen waxay ku gumeeyeen inan taayar ee fanaanada ah ee heesta qaaday maadaama adarkiisa shicibkii reer Soomaaliya gabigoodiiba inay ka mudaharaadayeen jawaabteedii maanta ay disinay hadaba dhageysta dhagahan oo fura waa qodobka koowaad inta waxa ku qabsateen hees bay u soo qaaday Soomaaliya ay leedahay amxaara iga xigta anagu amxaarada ma naan guursanayni ictiraafan kaga bedelanayni dantayada anaga gashay anaga markuu ka Soomaaliga anaga ictiraafkii warshalay anagu dayduguma naan jirin laakiinse waxbaan idigu darsanay waa nagu gumowdeen oo anagii wax idigu darsanay idigamanaan helin wixii aan anagu idigu darsanay waa idiga soo noqonay ilaa maanta 30 sano laga joogo ayaa naga daba laadlaadaan 30 sano maanta inkaaraha inuu kala shaqaysanay waxa kamid ah war Soomaaliland nabad bay ku joogtaa ilaahay kasa ku ragooda u kaco dhiiga u shubay inamada yaraha daba heesta ku mudaharaadey waxaan leeyahay war damiirka idinka idisiinaya in 300 qof Muqdisho maalin walba dhulka la jaro inta war cas soo xidhataan adalkaasi yeeli meynada haysaan in hayr maxay uga guban weydeen maxay uga hadli weydeen way inta hees bay soo qaaday sidana abad u mudaharaadeen oo badeenu iib maaha ka goda gasheen waan idiga qaadanay reer xamarow ayaama kadib waxa dhacay madaxweynaha dhan ee idigu matala Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed isagoo Itoobiya leefleefay madaxweynaha leefleefaya ayaa halka waxaan ku aragnay inuu leeyahay toddoba badood baan bilaash ugu siiyay maxaad uga hadli weydeen haddaba muhiimadiinu ma ahayn Soomaali jacay muhiimadiinu ma ahayn bad ilaalin ee waa Soomaaliland nacayb ku biyaca baan runta idin sheegaya maanta qadiyada waxaad noo bilowdeen inaan fanaan daba u soo talaabi doonin maanta amarkeedana aan bixin reer Soomaaliland waxaan leeyahay halkay hadoo nuuri u dhalatayna inaad waa hoygii fanka waa meeshii lacagtu taalay waa meeshii fanku yaalay wax alaala iyo waxa idiga baahan tahay baan jirinba inantaasi waa noo soo nabad noqonaysa reer Soomaaliland mid baa oranaya war inantaasi dhiiga qaranka Soomaaliland baa ku jira aniga way igala qiimo badan tahay fanaaniin badan oo maanta reer Hargeysa inantaasi aanu kuma kaftamo waayo waa qarannimadii oo qofa laba fanaan ba waa loo cuqdadeeyo waa loo cusriyeeyay maxamed maamin kala ilaa su'aal baa la weydiiyay bari Muqdisho uu joogay iyadoo reer xamar hoos dhigayaan waxa lagu yiri waxaad kala dooratay Muqdisho iyo Hargeysa xiniyiisu fuulanikaasi Hargeysa doortay waxa lagu yiri Xasan Sheekh iyo madaxweyne Muuse Biixi intuu halka ka tirsaday Muuse Biixi xildiid halka ka sii mariyay inanta tiyo kala ku dhacday tabtii aynu maama ka yeelay tan ka yeelayna haddaba halka anigu waxaan u arkay nin inan la xifaaltamaya nin uma aqaano laba hablood baa barta ku xifaaltamay labada hablood mid showgeedii comment ku dhiiglayaal baa joojiyay Soomaaliland bay u soo socotay midna qaran baa joojiyay haddaba waxaan taaganay qaranka Soomaaliland waxa uu sheegayaa inanta shicib lama ficiltamina waa la siyaasadeeyo qaran baa arrinkeeda galay dawladda Soomaaliland waa inay si degdeg uga jawaabtaa oo inantaasi tustaa halkay qarannimada ka taagantay inantaana mid baan oranaya walaal macaan kaama kaftano haboon abibay kaama kaftano sida qarankan dhiiga ugu shubtaan dhiiga kugu shubayna waana ogaan doontaa qofkaas taa waan ka tagaya qodobka labaad in ka hadlaya inan xildhibaanada nagu matashaanaga Soomaaliland sifay doonta baa ku joogtay xalay toole waxa la dilay ilaaladeedii khaaska ahayd inaad reer xamarow markaan ku adkaysanay kii aad gowracdeen ee aanu ka hadli weynay ina maanta taad u soo socotaana waa gobsanna waxaan leeyahay inaad barta isku casil dawladdaadana soo weydiisay ictiraaf dalkaagana ka soo deg maanta wixii ka dambeeyay waa la xisaabtami doonaa Soomaaliya in badan baan walaalnimo ku sheeganay in badan baan xeerinay gobonimada laakiinse gobonimada idinka ka tago gunnimada qaatay sidaad noola dhaqanteen baa la idin dhaqmaya hadda baashu fanaan bay taagantay fanaan anagu kii aan dhalmo dalka iyaga oo gal runtaan idin sheegay ma gunnimo dagaalano kii aan dhalay dalka iyaga waa imanaya laakiinse fanaan kale oo reer Soomaaliya ka imidow walaal bartaasaad joogaysaa oo walaal dayax dal nuursheeni macaan hilaac baa sheekada naga soo afjaray wallahi inaanay walaaltinimada ba shaqaynaynin inaadan anigoo afkayga iyo afka reer Soomaaliland ba ku hadlay waxaan leeyahay inantaasi midna ay tahay fanaanada midna ay xildhibaanada xalay tooliyada la dilay arrinkiisii dawladda Soomaaliland kii horaanu ka qaadanay
oo inta halka lagu dhex gowracay aan ilaa maanta laga soo jawaabin kii labaad ay maraysaa Soomaaliland dawladeedu haday ka soo jawaab weydo labada qodobba oo inantaana sida qaran u soo dhaweey weydo inantaa kale xildhibaankeedii la dilay ilaaladeedii iyo kii horena laga dilay inta maanta dawladeedu wax xisaabtamayna war Soomaalinimadii bartaa inoo jirtiinta